الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. xubnaha sharafta leh caawa halkan igu yimid markaan soo dhaweynayaa marka labaad waxaan caawa halkan igu yimid xubnaha baarlamaanka gaariga 20 oo mooshin ka wado gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Mudane Cismaan Barre Maxamed. mooshinkaas waxaa saxiixay 63 xubnood oo baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan. sidaas darteed waan ka qabtay maadaama uu weliba dhaafay habkii lagu kala jiray mooshinka sida dastuurka uu qabo ama xeerarka uu qabo, marka sidaasaan ugu qabtay. marka waxaan kulli sharciga la marayaa, waxaa la ixtiraamayaa sharciga iyo dastuurka labada xeerarka iyo dastuurka la ixtiraamayaa iyadaan lagu dhaqmi doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo rabitaanka baarlamaanka ku shaqeyn doona haddii rabbiina. marka mooshinkaas waan ka qabtay waana waa rasiidkooda waa siiyey waa u saxaxay shaqo shaabadeeyay waana hirgeli doonaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. waxaa kaloo meesha laga keenay warqad kale oo ay soo qoreen xubno ayaan yarayn oo gaaraya 60 haddaan sheegayo saddexda waxay dalbayaan in baarlamaanka loo furo baarlamaanka inuu shaqeeyo maadaama hadda kalfadhan caadi ahayn maadaama hadda lagu jiro muxuu ahaa cibaado lagu jiro oo bil Ramadaan lagu jiro haddana waa isla fiirinayna insha Allah maalintii mataqaana noo sugnaan doonto insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waan ixtiraamayna waan soo dhaweynaa muddaas waa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo saasina waan sayda. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عاو أي تهاي لح إلا باطن في بشي أفراد لبكم إلا باطن waxay isoo gudbiyeen xildhibaan gaaraya 54 xildhibaan mooshin ka dhan ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kaasoo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq ku xadgudubka dastuurka iyo maxay ahayd ku takfirada awoodda ayaa qodobada waaweyn lagu soo eedeeyay kamid ah. mooshinkaas waan guddoomiyay waan qabtay insha Allah ta'ala waxaan isugu yeeri doonaa sida uu xeerka uu qaba xildhibaanadii isoo gudbiyay oo yaani uu tamaamay mooshinkan uu leeyahay waxaan isugu yeeri doonaa xildhibaanada si ay waajibkooda dastuuriga u gutaan. waxaan rabaa marka inaan u sheego beesha caalamka ummadda reer Hirshabeelle dowladda Soomaaliyeed inay Hirshabeelle burbur qarka u saaran tahay mas'uuliyadeen oo iska leeyahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweyne ku-xigeenka. marka Hirshabeelle waxaan leeyahay laga soo gaara musuqmaasuq ayaa hareeyay hantideeda ayaa la lunsaday maxay ahayd amnigeeda ayaa faraha ka baxay siyaasadeeda ayaa faraha ka baxday. dowladda Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa in dhammaan inta kala xabanaysa Hirshabeelle inay si degdeg ugu soo gaaraan. annaga amaana ayaa naloo dhiibtay amaanadeena muxuu ahaa hogaankii Hirshabeelle uu ku fashilmay mooshinkiisa ayaa horyeelay waa mooshinkii saddexaad oo laga keena. marka waxaan rabaa in ciddii Hirshabeelle u naxayso oo dowladda Soomaaliya ugu horeyso in arintaasi ay wax ka qabtaan mooshinkiisa insha Allah ta'ala saacadaha fooda inuu soo hayo si dastuurka u qabo ayaa la marinayaa. mar kale waxaan u baaqayaa ummadda reer Hirshabeelle dowladda ugu horeeyaan inay aayahooda ka tashtaan maadaama Hirshabeelle ay noqotay maqaayad yaani restaurant qof le amal muxuu ahaa loo shaqeynayo. marka mooshinkan waa horyeelaa insha Allah si dastuuri ayaa loo gudan doonaa laakiin guud ahaan waxaan la Hirshabeelle waa fashilantay waxaana fashilin Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyagana ka mas'uula tigrafalkii wax ma ayaa ka dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan xubnaha ka soo jeeda Hirshabeelle dowladda ugu jira waxaan u sheegayaa in Hirshabeelle inuu kala yaaca ay muxuu ahaa qad ku saaran tahay. waa mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.